وي اوك سلام يا صاحب. برنامج باي رب العالمين ما شاء الله. هذه ادوان كو سلام يا تكفي قنا حتى اسمي صوري هاي روح عادي كفي هداد نص اوكي وروان سلام يا دمانتين با سو دوادا ونكي وضع ahaa عبد السلام جتلمان asxaabta akhyaarta meel ay ku sugantihiin dunida dacaladeeda waxaan idinku salaamayaa mar koobaad salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dabcan barnaamijkeena waxaynu ugu horreysiinaynaa oon mar hore halkan uga tacsiidinaynaa Saciid Handulle barnaamijkana sii faafiya dadka ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay hoteelka Elite meel la dhahdaa dabcan ee magaalada Muqdisho xeebta Lido. halkaa xalay tobanigii taa arrimo idin sheegay idin kulahaa meeshan howlo fara badan janno gale mooy aad baan kuu salaamayaa inaad iyo dhammaantiinba waxa ka socda waxa weeyaan waa riwaayad weeyaan riwaayad baa laga wadaa iyo been laakiin allah raxmaankaaba markasta waa fashilinaya. horta tiradu dhimashadu ilaa hadda lama xaqiijin dad fara badanna hoteelka way ku dhinteen. shaqadaraadna waa kii ka hadlayay dee qolyahan u yeesmaanka farmaajo kan la yidhaahdo gudoomiyaha gobolka banaadir maqab oo wakiilaha wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiinba ma qabo meel ay amni darre ka jirto oo doorashooyin waa la qaban karaa oo waa falsafadan dee kacaanku adeegsadaan ee beenta qaawan ee qayaxan ee aan geedna loogu soo gabanayn. halkaa xataa waxaa ku dhaawacmay sida iminka lasoo sheegayo wasiirkii isaguna kasoo noqday xabaashii odaygii Siyaad Barre ee ilaa maanta aanay ka samrin kacaanku ninka lahdo goodax Barre aad baan ku salaamayaa shaakir saaxiib dabcan oo isaguna meesha ku sigtay. sidoo kale mid galmudug ah ayaa imika wararka hordhaca ay sheegayaan oo mala wasiir iyo wax ka maamulka galmudug. sidoo kale dad fara badan waxaa la kaloo la sheegaya dad iska shacaba oo nin kaloo isagana bartan iminka hadeerto sawiradiisii wax lasoo dhigayay. waa meesha noocaas shabaab iyo farmaajo wada shaqaystaan. weliba waxaa xogo hoose lagu helaya in lagu bartilmaamedsanayay niman muduloodka had iyo jeer waa nimankan habar gidriya baa lahdaa mudulood oo ku maalmo dhow tashar u socday. waana nimanka iminka lala maagan yahay in marshal law wax la yidhaahdo markuu dalka kusoo noqdo uu kusoo rogo in Siyaad Barre new afweyne oo 3 months oo ku wax la yidhaahdo marshal law oo baarlamaankuna ay sida la sheegayo ay rabaan inay u kordhiyaan. horta nimanka dhibataas oo ku socota taas waa taa barnaamijka googos baan nooga dhigayaa. waxa kale oo soo noqonaya iyagana aad iyo aad ugu faraxsanahay ciyaalkii yaryaraa ee intay hudheed ka qaadeen Hargeysa dabeetana ku gubay duleedka Salaxley ee dib u soo yaacay oo waajibkoodii la mariyay xukuumaddu ka qaatay tallaabo ku haboon oo maanta ba Mandheera fadhiya. inkastoo malaha waan ku salaamayaa Landa ay dadkaniba caanba iyo inay caangaroobaan ay falalka foosho xun ee dulinimada ah ee daciifnimada ah ay dadka qaar u sameynayaan. maxaa jira hadaba xisbiga lahdo wadani madaxdiisa sare way kula socdaan waxan waanay la ogyiin. xisbiga la yiraahdo wadani waxaan idin sheegayaa waxaan leeyahay xisbiyow ninkii cod ka rabo bulshadu isaga carar riix xisbiga ciyaalka ah. ninka la yiraahdo xisbiga wadani 3 sanadood wuxuu ku jireen qas iyo arbush iyo qalalaase waana isku wada xidheen. xaqiiqdii waxa weeyaan qaar xildhibaan oo sharaxan nasiib darrada in ugu soo socotay kale qaar xildhibaan oo sharaxan oo doonaya inay bari ka maalin masiirka ummadda reer Soomaaliland ee baarlamaanka u fadhiistaan. Siyaad Lango saaxiib oo salaamay wacalaykum assalaam assalaamu calaykum baad ugu soo qortaa inta badan waan ku arkaa ayaa ku xidhan ciyaalka Mahdi uu dhaqaalaha ku siiyo ee radio qolamaad inaad ariga baxdaba halkaa waan kugu balooyi karaa. way wadunida ugu nacay qofkan oo hadalkayga watayga dhaxgala oo gudaan maxaa cusub iyo waxnaas ama dhigaysan iska bax daasol wixii kale oo dhan uma joojiyo. anyway xisbigan la yiraahdo wadani wuxuu cadow ku yahay wadajirka bulshada reer Somaliland hadday tahay kuwa saaxil degan hadday tahay kuwa togdheer degan hadday tahay kuwa waqooyiga maroodi jeex degan hadday tahay kuwa boorame degan hadday tahay kuwa gobolka haw degan ee Balagubadle. xisbigaas wuxuu isku soo koobay reer iyo hab qabiil. xaqiiqdu waxa weeyaan ciyaalka yaryar ee ka soo qayliya social media ee 24 saacadood ku adimayaad moodid magaciiba la liinbixiyay magaca garxid kaasaan kamid ah Mawlid Muuse Dacar wuxuu ku jiraa xisbiga la yiraahdo
dabcan wadani kaasu ku xidhay kaydun aragteen ee been abuurka arrintiina waa ti lasoo ogaadayba arrintu bartaa lasoo fadhiistay oo lahaa heblay garxayd soo quraan meesha ka qabanaya magaca 400 baan qoraya waxa laga soo abaabulay maafiyadan muqdisho ayaa soo abaabushay iyo ninka jaariyada waa farmaajo halka aan waxbana laga weydiin marka ragga fardoolidu had iyo jeer markay shirayso loolida looma yeero loolida laga dhigay gebigiisaba halkaa markay isku haystaan koonfurtu siyaasadaha ee arrimaha qaar ee madaxa isla galaan mid uu madaxtooyada kaga soo daray ayaa dabcan arrimahan ka dambeeyey waana arrimo laga abaabulay facebooka oo dad aad iyo aad maskaxdu uga xumaatay oo somaliland u haysta in facebook laga dumin karo oo dad liita ah oo u haysta in cuqudad lagaga qaadi karo dabcan dadka cod lagaga heli karo war in badan baanu ka xishoon aanu ka warwareegnay laakiin xisbiga fayraska ah bulshada reer somaliland wuxuu ka shaqeynayaa isku dirkooda wuxuu dib ugu celinayaa wax la yidhaahdo hab qabiil war hab axsaab baynu marayna maynaan waynu ka gudubnay waana xisbi ishubsaday oo is ogaaday ninka la yidhaahdo guddoomiyaha ee la yidhaahdo ciro wuxuu ogaaday inaanu bulshada kasban karin aanu soona bixi karin codna aanu ka heli karin markaa wuxuu nin daadqaaday xumbo cogsay waxa uu awoodiisii isugu geeyey uu awoodiisii duldhigay social media isagii rag kaloo siyaasiyiin oo iyagana aan ku daba jiro aan daba socdo oo arrintana kasoo koobiyey farmaajaha social mediaha ummadda ku waala reer somaliland ma aha daba reer muqdisho mana aha dad social mediaha looga aramiyo waa dadkii iyagu dadka hogaamin jiray waana dad wax fahma haddaad reerkaagii aad ka dhigtay cambaar ood cambaar dusha kaga dhufatay annagu waxaanu ku leen iminka waxaa xitaa maalmahan ay arrimaha ay ka wadaan yurub maalin dhexdaasa odaygii la yidhaahdo talyaaniga jooga ee khaakhaan kuwii arrinka shirqoolkaa sameynayay waxayan ciyaal yarar oo magaca garxajis baabiya oo magaca garxajis ilaa baray reerwaajidkii oo uu haysta inay wanaag ku keenayaan waa kuwii odaygaa bartaa ku dilay odaygaas waa nin garxajis maxaad xukuumadda u taageertaa maxaad farmaajo uga hortimi xitaa farmaajo dusha ku istaanba war farmaajo maxaa anagiiyo farmaajo naga dhexeeya col baabaanu nahay farmaajona waa ninkaa caddaystay waa ninkaa la taliyaasha ka dhigtay morgan waa ninka la taliyaha u yahay maxamed cabdi waa ninka dadkii jasiiro lagu xasuuqayay ku dheeldheelaya waa ninkaa maanta ummadda bartaa ku leynaya markaa ninka kuwa hoos tagay kuwa hoos fadhiya innaga ma aha ummadeenana ma aha war waan idin salaamaya dhammaantiinba salaan sare ummadda reer somaliland waxaan leeyahay hogaamiyaha hankaya horey reer somaliland uga hadleen waxay ninkii uu han weyn hogaanka dalkow hankaagu ha dhaafa reer hebel warada runtaa la isu sheegaya haddii murka qaraadha inaanu ku toban ka hadla garxajis oo dhammaantood israaci madaxweyne ma soo saari karaan faataabakh iyo faanna madaxweyne laguma soo saaro habar jecel oo dhan oo israacdaa ma soo saari karto habar rawal oo dhan oo israacdaa ma soo saari karto madaxweynenimadu ma aha caaqil ma aha wax social mediaha iyo radio qolamaata iyo hebelow qolama waxaa maaha waxay u baahan tahay taatiko aada bulshada reer somaliland ee walaalaha ah ee wada degan ilan dadkii maanta idinkaas ka dhex saaraya aad dadka oo dhan ku dhex geshin dowladdanna way ka horumartay wax laga dumiyo qof cadiifadaysan iyo dad cadhaysan waxay dumiyeen dowladdan way ka horumartay qodobka halkaasaan dhig waxaan usoo noqonayaa qolyo iyaguna baarlamaanka ku jira baarlamaanka had iyo jeer marka muddada loo kordhiyo nimankaas waa nimankii baarlamaanka fadhiistay 2005 caruur baan markay baarlamaanka fadhiisteen waaban wax badan maanaan hadan ilaa maanta baarlamaankay fadhiyaan maalinta wax loo kordhiyo kama hadlaan wax la hada saami qaybsi xeerarka saami qaybsiga iyo xeerar weliba waa wuxuu cira ka tegay taa laftigeeda cira isagaana kaga tegay horta intaanan halkaa hadalka isku dhex darin waxaan leeyahay nimankaa baarlamaanka ee gobolka awdal iminka iyaguna dhinaca qabsaday war marka aad muddada laydin kordhinayo marba 2 sano laydin kordhinayo maxaa saamiga uga hadlayden maxaa keena maalinta doorasho lagu dhawaaqo inaad idinkuna intaad soo boodaan aad tidhaahdaan saami qaybsigii kuwaana loo joojin maayo somaliland waxa kale oo ay baabkeeda xidha oo xukuumaddan maanta uu hogaaminaya madaxweyne muuse bixi cabdi ay baabkeeda xidha oo dadka o dhan u wada qaylinayaan salaadiintii iyaguna
shaqaaqooyinka ka shaqaysan jiray ee shaqaaqooyinka iyo dhibaatooyinku markay ummadda ku kala dhacaan odhan jiray annagaa dhammaynana waxbana aan dhamayn jirin ee colaada ceelaf weyn had iyo jeer soo noqnoqota ee iminka ay xukuumadda ku xumeeyaan rag baa ka baac mushtarin jiray wixiiba xukuumaddu way joojisay suldaanaho bay tiri nidaamkii saxda ahaa wasaaradda arrimaha gudaha waxaa registration ugu jira caaqilada waa caaqilada xataa tira dadka hayaba nimankana salaadiinta sheegtay ama buurmadoobow hebel kalow cali madoobow waxaasoo dhani waxay ahaayeen hoosiis maalinta dhawaato nabadii si fiican baa loo soo afjaray waanay joojiyeen dhaqaalahana waa la waayay oo dhaqaalaha waxaa laga baac mushtarin jiray dhiigga dadka ayay ku qaadin jireen dhaqaale iyo lacag halkaa xukuumaddu waxaan leenahay hore uga sii socdo waana xukuumad adag waanan ku hambalyanaya arrintaa nimankaa baarlamaanka ayaan mar labaad ku celinaya ummad yahay wadajirkiina iyo horumarkiina iyo wanaaggiina dadka la dagaalamaya ma aha cadowga dibadda oo qura ka gudaha la dagaalamaya wuxuu diidan yahay dhalinyarada cusub ee soo bixi doonta wuxuu ka hortaagan yahay waa danayste waa selfish wuxuu joogaa inuu baarlamaankaa fadhiyo maalin allaala maalinta doorashadana way ka naxaanba maalintay doorasho maqlaan ayay ku odhanayaan war haddii saami qaybsi laga hadlayo gobol kasta oo reer somaliland oo waxbaa ka maqan maaha inaad gobolkaana nin aan kuu furi doonin yaanu kuu rarin iminka awdal bay isku wada qaadayaan sida dadka awdal ka xigaan nasteexo uma hayaan waa inay qas iyo inagu furaan laakiin dunidu u joojin mayso doorashadana siday sheegeen commishinku 10 bilood bay ku qabanayaan way qabsoomaysaa wixii social mediaha maalinta dhawto wax ka ururinayna ee magaca ceebeynayna iyaguna may ahayn reer somaliland wixii oo dhan waa tii lasoo ogaaday inankaa yar ee halkaa ka qaylqayliya ee reer garxajis la yidhaahdaa iska qaban kari waayeen walow ay rag sharaf badan oo ninka halkaan ka arkayo ee dabcan ciise la yidhaahdo ninka la yidhaahdo ibrahim caydiid nin kaloo faysal la yidhaahdo dad rag badan oo noocaasa ay jiraan oo sharaf mudan oo social mediaha ka hadla oo magaca reerka ilaaliya oo si goobannimo loo sharaf loogu hadla oo ninka ragga waa inuu tolkiina xumaanta ka qabtaa raggaasoo dhan waanu hambalyaan bartan u marinaya laakiin iyaga ayaa la socda walaalayaal waxaa la socda in maangaaba oo innaga ah oo aan aragtidoodu dheerayn oo aan dowladnimada wadajirka wanaagga waxaa fahansanayn iyo wax allaale wixii cadowga ahaa ee somaliland cadowga ku ahaa ee muqdisho cadowga ku ahaa ee dowladdii duntay ee habaarka qabtay ee ummadda soomaaliyeed ee halkaa reerka dadkaa isku dirtay ee maantana wax qarxinaysa way xukuumaddaa wax qarxisa iyaga laftigooda qaraxan dadkay ku shaambadayaan se odhan hebel baa waxaan qarxin hadda waa hebel ka dhuumanayaba keebaa wax qarxin kara cabdiraxmaan cabdishakuur oo kale tusaalahan ay ku eedeeyaan iyo ninka la yidhaahdo baan arrin yar idinka sinay cabdiraxmaan cabdishakuur wallaahi ilaa sas baabu qaadayba isagii argixisay ku ridin waa ninka intay gurigiisii ugu tageen isagana xabaddu halkan meelahan ay kaga dhacdo tibri gacanta ka jibisay 7 xataa gabadh uurle ku jirto ayay farmaajo iyo kooxdiisana argagaxay ay joogteen oo madaxa ka joogteen mase weliba intay ku qaadeen baashan maxaa la yidhahdaa cagcagaf ayaa lagu aasay meydkoodii macaalkabihii walaal ma ninka noocaasa inaynu in dadkan dee falsafad bay ku dhibayaan inaynu ninka noocaasa dembi iska saarno horta isagiiaba tabaalaysanba ka noocaasa wax ma qarxin karaaba ee inta 9 casho la xidhay markii dambana la soo daayay ee isaga dhibaato nimanka airportka loo diidayo ee la leeyahay airportka ma duuli kartaan wax ma qarxin karaan waxa wax qarxiya waa Fahad Yaasin waa farmaajo waa kooxdiisa waa kuwa ummadda ku noqday fayraska kuwa noocaas meel kasta way ka howlgalaan waxay ka howlgalaan iminka social media shaxdan waa loo soo dhiibay ballan lacagta maanu aragno radio qolamaati baa lacag oranaya garxajis maciyo hablaha yar oo cadhaysan oo meelaha yaryar iyo ciyaal yaryar oo cadhaysan ayaa garxajis wuxuu ururin karaa bal halan aragno bal lacagta la soo saaro waan qoray waa arrin uu dabada kasoo riixayo dabada uga soo dhiibay ninka la yidhaahdo mahdi magaca garxajis ku ciyaara laakiin xabashiga ah xaqiiqda fiican ninku markuu magaca reerkooda ku ciyaarayo waa xabash magaca reerkiina haddaad untid mabda kasta kalaba qaado fikir kastaba qaado laakiin magaca reerkiina meel kastaad joogtidba iyo dadkaaga iyo ehelkaaga iyo qaraabadaada waa inaad u damqatid waa inaanad noqonin calowshis shaqayste
wax kasta aqbala waa inaad libaax noqotaa markaad xitaa halkaa kala joogta annagoon xilba qaban oo iyaga si kale ugu dhex jirno oo ay naga boobeen xitaa bagekeygii midnimo qaran ayaan bartaa soo gaadhsiiyey ayaanu ka aqbali jirin waxyaabaha qaar in isaaq agteeda lagu caayo in anigu aan maago aniga xaq ula anigu nin reer shaqas xaqabaan laakiin in isaaq agteeda lagu bahdilo in la caayo in taariikhdoodii la dafiro in magac xumada ay maanta wadaan xisbiga wadani iyo waxa taageera odayga xasan caynaashimaanu xisbiga wadani ahayn miyaanu shalato calanka sidin miyaanu ka tegi wayn xitaa meytidii reer shaqasxaaq miyaanu aanay ka suroobin inuu idhaahdo cabdillaahi sultaan tima cadday gabaygiisii farmaajo adeerkii baa tiri maragga noocaasaba aniga meel la soo istaagi kara oo imkana meelaha wax kusoo qorqori kara oo qaar aad grey ku weerarteen iyo qaar aad leediin hebel baan weeraraya wax noocaas midinkaan rag baa horta marka hore rag soo noqda ordoo rag iska soo dhiga magaca reerkana wallaahi anaa idinkana idinkala dagaalamaya igama xigtaan magaca garxajis aniga igamaba xigo inaan kan yar ee magaca isku qaadaya adan aniga habrinusa dhashay miskiinow ciidagalahaana dhibaataad ku ta habrinisna dhibaataad ku ta magac dilna waad ku samaynaysaa xisbigan la yidhaahdo ninka la yidhahdo cirana magaca reerka wuu ku ciyaaraya waanu dilaya sidee hadda ka horba axmed maxamed maxamuud sinaayo oo sharaf lahaa yaa magaciisi ku ciyaaray niman habar jeclaa baa ku ciyaaray baashu mararka qaar adiga midab sutin baa cadow kugu noqonaya yaa ku ciyaarayay xirsi baa ku ciyaarayay inaxaasho baa ku ciyaarayay inaxaashiga maanta isaguna ciyaalka samaystay maxamedka ahayn la daba dhigay ee aan ummadda ka iibsamayn ayaa ku ciyaarayay maxaa run la isugu sheegi waaya ee maantana facebooka ciyaalka soo fadhiisiyay ee burca online samaystay ee kii burca online ciise riyoole adar usoo qoraya reeran ognay musabixi uu ka adkaaday reerkeebuu ka adkaaday madaxweyne waa madaxweynahaygii annagaana dadkaana doortay reer somaliland baana doortay habar jeclana kuwii codeynaya bahano codka siiyey maasha allah waa fayrasyada kan la yidhaahdo wadanina iyagayna kaga tegiyey nimankaasu marka horeba habaar bay ahay intay iska eegayeen berigii ninka la odhan jiray gaboosa ee xisbigii ummadda ayaa waxay inagu soo saareen inaxaashi iyo ninkan la idhaahdo xirsi kaa maanta 3 sannadood war somaliland doorasha la kala heli jiray weligeedba berigii shirkii booramo waati lasoo kala haray markaana qaska wax ma garato ninka ina buubaa la idhaahdo sunta weyn ee isaguna hargeysa fadhiya berigaana ina buubaa baa dadka horkacay oo sun ahaa maantana ina buubaa xisbiga wadani buu ku jiraa way isu eeg tahayba taariikhdu way isu galgalaysaa mood berigaa horena ina buubaabaa saas oo kale inoo rabshay doorashadii 1997 ilaahay dadka caadiga ee maskaxdooda caadiga u shaqeynaysa ee aan la waali karin ayaa tartamay ina cigaal allah u naxariisto weliba ina cigaal iyagaaba u codiyeyba joog iyo jaaq cidna may odhan war adeer abtiyaal dadka ka xishooda oo waxaan aad wadaan waa ceeb wallaahi inaanu daarood waxba ku tari karin maraxan waxba ku tari karin ogaadin waxba ku tari karin hawiye waxba ku tari karin isaaqoonba wax ku tari karaa isaaqna waxa ma yeeli kartid intaasoo soo raaceen isaaq iyo somaliland ma dumi karaan hawiye oo dhan iyo raxan weyn iyo macaadaarado dhan soo raacaan wallaahi baanay somaliland dumi karin waxna yeeli karin been baana isu sheegtay ninka yidhaahda waxbaan duminaya ina buubaa ninka la yidhaahdaa waa ninkii maalintii hore ee ina cigaalna jarka ka tuuray baan leeyahay abtayaashii garxajis ee cabdiraxmaan tuur jarka ka tuuray ee intuu dhiigga dadka daadiyey dabadna muqdisho fadhiistay ee halkaa bahdilka lagaga sameynaya magaalada lahda muqdisho ee aan waxbana tarin ee una cigaal markii la weydiinay ina cigaal yidhi ninkan waan aqaanaay oo lacag jecel yahayo laakiin waa nin aqoon-yahan oo laakiin waa la iibsan karaa buuri waan iibsan lahaa waan haya iyadoo duuban ina cigaal oo english lagu wareysanayo isagana english lagu wareysanayo oo ina cigaal markaa doorashadii 1997 waxaa tartamay saleebaan maxamuud aadan oo magaciigii iga daayay buudhaan guri waan ka daayay saleebaan maxamuud aadan iyo maxamed xaashi cilmi oo ninkaa isaguna dabcan wasiirka maaliyadda ahaan jiray iyo maxamed xaaji ibraahim cigaal doorashadii markii inaga dhamaatay ilan iyadaba doorasho dhan xanaf bay leedahay oo nin dhacay oo haddana lagaa helay saleebaanna uu iska duulay oo saleebaan baa xoogaa kusoo dhawaaday oo xoogaa dawa iska leeday ciyaartaba idinka arkay marka la kala badiyo dee wati dabadna uu banaankaa iska maray uu jabuuti meesha uu sii maray albaab halkana wala iska yara xidhay iga raale hada walaynanaan taariikhda beentaya laga dhaadhicinayo faqash iyo dad aan jirin ninka ka daba tegaya waa aniga ninka mar kastana ku dagaalamaya wallahi waa aniga somalilandna ninka beri ku khaldamay minkana leh waa aniga oo ciyaalka yarre uu farmaajo wato dhanna wada akhro u diray
anyway berigaa waa ti markaa Saleebaan iska duulay. Saleebaanna waa kii markuu Maxamuud Xaashi Cilmina waxba lagama maqan muusna iska aamusay intiisii uu ku qaracay weliba reer Geesana waa maasha Allah ma oran tolay ya Sacad Muuse dagaalamaayo oo ina cigaalo waxa no tiiba ka dambeysay waxa ka dambeysay tii Daahir Riyaale iyo Allahu musta'aan Axmed Siilaayo 2003 ee qoodha reer Soomaaliland oo la socotay Axmed Siilaayo inta badan anagu rag badan oo mujaahidiin ahaba way la socdeen Daahir Riyaale oo SNMT ahaa Cabdilaahi Darawal baa kamid ahaa ina Xaashi Cilmiga asaaba kamid ahaa rag noocaas oo fara badan baa la socday laakiin Muuse Biixi Cabdi Ibrahim Xuseen Dhegaweyne Maxamed Kaahin Axmed ragga SNMT inta badan ninkii dhintay Allah ha naxariistay la oran jiray Xasan Guure dhawaan dhintay you can imagine tramalaha wuxuu baa Axmed Siilaayo markaa la socday iyo xisbiga kulmiye waa tii laga helay waliba helitaankaas wuxuu ahaa mid aan dunida oo dhan ka dhicinba oo unique ah waninka lagu dhistay sanad baa laga helay war 8 sanad ku kala helay oo waliba sanduuq laga soo shaqeeyay oo balcaan laga soo qaaday oo Saleebaan bal eeg laba nool maadeera Saleebaan oo markaa isagana sayeen Siilaayo waxa idna kama qorin wuri anaga waliba wati commissionka ay ku dhex dagaalameen Saleebaan Maxamuud Aadan iyo Muuse Biixi Muuse isaguna markaa Axmed Siilaayo la socday iyo ninka la yiraahdo Saleebaan Maxamuud Aadan oo isaguna la socday Daahir Riyaale iyo xukuumadii udubta oo markuu xisbigiisii Asad ama ururkiisii Asad uu haray waa kii la midoobay xisbigii udub taana meynaan arag buuqan 7 sanadood soconayay ee dadka waliba xisbi doonaya inuu dad hogaamiyo oo cod doonayo dadkii caayay oo shacabkii caayay u samaystay oo qaar oranaya reer hebel baatiin reer waradar codna waa doonaysa wuxuu baashi ma oranaya hablo fara badan baa barta ku jiray Allah ya barak anigu dumarka tawada waxba ka oran maayo heblaay laakiin heblaay baa la heblaay waxaana way rabtaa waxaan kalena haabkeediiba ma haysaba bal dadkii baad cod ka doonaysa habar jalaad ka doonaysa habar walbaad ka doonaysa ciisaad ka doonaysa gudubirsaad ka doonaysa dhulbahantaad ka doonaysa inta Soomaaliland dabcan ka codaysa walaal Soomaaliland yihiin warsan gali baad ka doonaysa marheerkaagii baad ka doonaysaa kaliya annagan xaqiiqadan soo ogaaday waxa weeyaan oo runa xisbigan reer quru ku socda falsafadaasuna falsafad ka shaqeyn karta Soomaaliland ma waxa uu kala oo cod malaa ka doonaya koonfurta de Soomaaliya iyo halka inuu Soomaaliland dumiyo haddaba Soomaaliland dumin maysan been Soomaaliland lagu dumin maayo tacabaana galay waanay soconaysa wallahi hadii murka qaraarnaysan inay dumin tabti 1994 oo kale aad 1994 waxaan difaacinay waxa ahayd sharafta iyo qadiyada iyo gobonimada Soomaaliland garxajska inta maskaxda badan ee aqligaana maanta way difaacanaysaa waanay barbar taagantay berigaaba dad ka soo hadhay baa jiray laha war nimankan waalanee buubaaye naga soo reeb xaaj Cabdowraa baa kamid ah waxa kamid ahaa markii dambe rag fara badan oo waracadaya siyaasiyiin fara badan oo war waxani aqli ma aha oo inaynu aqli ma shaqeynay aqligu ha shaqeeyo wadigi maalintii ogaaday inaad khaldanayd ee dib u yimi maantana inuu yaro halkana oo faqashtu ku shaqeysato oo halkan la soo fadhiistay garaxaajiis warnimayo hadaa rag tihiin oo ay rag tihiin waxan faqashtu ku shaqeysanaysa umada ka qabta oo dadka ka qabta oo taariikhda saxan ee sugan la yimaada ma farmaajo ka liditaan farmaajo buu qabyaaladiste reerkiisu meel kasta ku urursaday qaliminka ka dhigtay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug miyaad garanaysaa hebel ciid baa la yiraahdaa staafkiisu waxa maalmaha halkan biljamaan isku arkin wallahi hada staafkii ilaalinay reer Diniis ka badaayo dalal bay isku yiin dalalku afar bay kala tusaniye 5 reer dalal mala waa reer daahir oo kala noolay ama hadaan ka basii hooseynba waa meelaha soo kale madaxweyne ku-xigeenka wuxuu ka dhigay Galmudug warya haddana wuxuu ku leeyahay madaxweyne Soomaaliyeed baan ahay Soomaali baan u tarayaa oo wax noocaasa waxba uma tarayo dib baan Soomaali ku yahay halka maanta qaraxyada ka dhacayana isaga ayaa dabada ka riixaya isaga ayaa doonaya inuu ku shaambadeeyo niman hawiye ah oo waliba imka kuwan muduloodka la yiraahdo oo qaar fara badan dadka qaar uu jabsaday ayaa umada kuleynaya wixii halka ka dhacana waa dumadiisa ka afkiisa ku hadlayay laha gudoomiyaha gobolka Banaadir baan maalintii tan labada xubnood meesha ugu sii daray isagana la yiraahdo insha Allah maxaa la yiraahdaa waa nooc iibsaday sida kan wanigana inaga iibsaday
ee inagaba dhammaan bala anigu waxaan leeyahay xukuumadda waad ku saxsan tihiin waana wallahi baanu inay yarna is dhaqaajin karin in badanna madaxweynahan uu xishooday oo xaqiiqadaa fiican oo madaxweynenimadiisii waxaaban moodaaba in raggu iyaga oo siyaasadda isku haya oo si kasta siyaasadda isugu haya ayaa loo qiraa madaxweynenimada wax la idhaha waayo adiguna waxa ma hogaamin karta hadda adigu aanad ogolaan in lagu hogaamiyo bal abtiyaal beenadi kama sameynayno laakiin wixii najaraale dabiiciya inaynu iska daynabaa abtiyaal qurux badan wixii najaraale inaynu isu qirnaa qurux badan baan leeyahay magaalada hadna lasbareed marag iyo markhaati bay lahayd anigu waxaan marag iyo markhaati lahayn kama hadlo mana soo dhegeysto ciyaal cuqdadaysan haddaan cuqdad qaadayo berigaasaan qaadi lahaa oo habar jeclo silaayo guddoomiye snm ahaa inta doorashadiina laga helay oo doorashadiina lagaba qaadayba oo toos isaaq noogu badheedhayn weliba waxaa jacabdooraaba uu halkaa ka yidhi golaha goortida axmed silaayo madaxweynihii soo dagaalamay baata maantana annagaa kaa qaadnay banaankaa mar daahir eel annagaa u garanay oo garaxaysalka habti aan nagula hayda dheblibaax kir waxaa doontaan kulmiyow kir marka soo qalbeedu soo maro ololaha xisbiga miyaanu somaliland ka baxna miyaanu jabhada samaysana miyaanu buurakuur gorkood fuulna miyaanu madaxweynihii ka hornimi daahir yaale miyaynan madaxweyne lahayn mid annaga haddaba khaasiyan cabdisalaan haan khaasi ugu dhacday baan idin sheegaya oo ka dhacday gobolka la hado Mpumalanga province waxay ku taallaa xuduudka ama border gate-ka Mozambique iyo South Africa gobolka caasimadiisuna tahay Nelspruit dhinacna wuxuu leeyahay Swaziland halkaa waxaa meherada ku haystay waaweyn laba nin oo midna abtiga yahay oo habeenimo soo raacay naasha oo Ahmed baa la oran jiray Ahmed Caynaasha markii loo bixiyay oo lagu naanaysan jiray kataniska daahidu geli jiray kataniska wax la kuwan oo kala English ta katanis baa lagu dhahaa dabcan anagu English taba gabiga daba Faransiiska English baa dhex kala markasta marka qola u shaqeynayay dhalinyaro badan habeenimo waxaa ka mid ah Shaafici oo reer Burca warwada garanaysa Shaafici oo meelahan way iska dhigisanay oo nin reer wiida mid yaro kale Musa Carraa dhowr baa u shaqeynayay maragay marxaad feelahay waxa soo dhawaatay waa 2007 waxa soo dhawaatay 18 May dhinaca kalena waxa magaalada meherad weyn oo supermarket ku haysta oday Faarax Mabuto isagana loo bixiyay oo UN ka u fadhii jiray Mabuto caasimada Mozambique oo habar jeclaayo Solomado waa Bakar Cabdillah oo raggii siyaad barre intuu bari u diray intuu igtay ka baxsadeen iyagoo aqoon-yahana dibadda SNM ka taageeri jiray ina shagaxla ninka la haysan reer Muuse oo dadku malaama garanayaan ninkaas iyagu sheegi jiro aqoon-yahan oo ragga dibadda oo qaarna dhakhtarnimo barteen qaar isagu wuxuu chief accountant ayuu ahaa kan xisaabaadka bartay xisaabaadka imka wax ka shaqeeya dahabshil salay sheegay oo xisaabiyaha guud ee dahabshil oo dhan buu yahay mala Hargeysa isaga soo wareegay dukaan weyn buu ku haysan jiray oo meel backstation ka waxay dhahdaan South Africaanku halka bus station ko kale ay backstation bay ugu dhahaan halkaas ku haystay waxa uu shaqeynayay waxa isaguna dukaanka shar ku lahaa nin la yiraahdo Xamse Cali Faarax waxay walaalayeen nin kasto isna ma uu garanaya ninkii la jiray Cabdi Cali Faarax ee general ahaa gaashaanlaha ahaa ee SNMT maalmihii bariga Burca la soo galay isaguna dagaalkii ADD Burca ku dhintay Xamse Cali Faarax inuu dagaalka ku dhintay oo waraabay ku dhintay dabcan dadka qaar baa ilaa aada salabaan mugubtaba waraabay ku dhintay isagoo gurmad ah oo gurmad ka cararay dhinacan habar jacado xagga habriisto u gurmanayba ay magaalada la waraabay ku dhintay Xamse Cali Faarax iyo Cabdi Cali Faarax waa walaal Xamse asaa markaa isaguna meesha la haysto waa markaa anaguna college ka dhiganay yaan dhiganay Arfesa Progressive College in Commerce waxa ku soo bartay dabeetana waxa la yiri 18 May anaga markaa waana lagu yeeray xumeynaa maqaaxibaan galabtii isku yeeranay maadna nin ogaadeen oo habar mis dhashay oo haysto oo useful yiraahdo wadaada oo ku taaleen la sfaray dabeedna waxay yiraahdeen qolada habar jaclo wati doorashadii maalinta dhowta laga xiray warto waa caadi deelan waxan baynu reeraha idinku way idinka afraad ka reer ku soo celinayeen doorashada waati laga xiray maantana daahir yala meesha madaxweyne ka way meesha ma tagayaan oo caadisin sidee baan aanu tagin wallahi intu ma gaarigiinisi odaygii oo la dhahay Faarax Mabuto ayaa waxa nagu kaxeeyay xitaa gaariga markaa darawal ahaa Mustafa Goox maanta Ingiriisku jooga isaguna uu nooli isku age baa noom niyo Mustafa Goox dhinaca soo raabtan iyo sidoo kale mid isaguna big show la yiraahdo oo iska sujuuha
waanu israacnay iyo aniga ninka la ahda maxamed baasha cilmi iminkana welina lasbareed buu joogaa iyo nin islaamka Sweden iyo meelahan jooga oo garishka caatay ka shaqayn jiro dabla iyo waxa hayo la jira cabdi deeriye waxa yagiba meeshii baa naga shinayba maayla xafladii 18 May warragii nooca aha gaarina muu soo sin Axmed Caynaashe nagamanay daba iman xafladiina may ka soo qayb galin markaa waliba aniga loo tirinayo mucaarad wayna la yaabeen banima samaroon ahaa markaa Johannesburg iyo meherada ku haystay oo saasay oo kunwaan niyo hadaan dabi wallahi noo Shaafici man Shaafici maalinta ma nootimi markaan maqaaxida meelahan fadhiisanana waa dikii nagu oran jiray war markaa aniga Somaliland adeer gomaana tagna cidnaba waa meeshaan soo dagaalanay dhiigay ku daatay qofka naga falaago bas sida gentleman oo kale ayaa loo bixiyaa murtad ama nin waalan cidina ma dhageysato kaaymi kale raahdo Ciise Riyoole bal idinku waa gaas arka wallahi inaan cid dhageysanin isagu beedalayo xiiqayo dabadna maalinba meel yar rubis isku qaadaya dad ay dhiigooda iyo dhacaankooda ba raacday Somaliland baa doonaysa oo anaga waxaan ku soo weerarnay inaad la timaadid nicnic iyo sheeko noocaas hadaba Somaliland dumi mayso nimanka hawiyana waxaan leeyahay warnimo markay idin sheegay waxa weeyaan nimankii nigeesiinta ahaa ee ninkii siyaad barre aayadaha beeniyay ka hortagay ee aakhira u diray ayaa markii hore la idin ku diray oo la idin ka horkeen masa waxa la yiri waa Mooriyan waa kanow keer waa sida oo la magac dilay dadna markii taariikhdii la baabiyay ba maantana idinkii Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif iyo mad wali ka maqashan inagu laakiin reer Somaliland xusbaan u dhignaa intii dhimatay SNM kuwa maantana hogaaminayna waxaan leeyahay FIFA SNM halkaa waxaa kusoo qortaa reer Somaliland dhamaantiin FIFA SNM FIFA madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland isboo SNM xusbaan u dhignaa wallahi ninka abwaanka waan ku salaamayaa saaxiib abwaanka la yiraahdo abwaanka sameeyay ii sheeg aan magaciisa waan soo tuurayaa abwaanka la yiraahdo dahagaas sida kale baynu isugu yara kacsanaano abwaan dahagaas laakiin wallahi heesta dadku waxay u haystaan ma kala yaqaanaan qofkan heesta qaaday qofka sameeyay heesta BK baa qaaday tabcan uu ku luuqiyay BK laakiin ninkay maskaxdiisa iyo madaxiisa ka soo maaxatay kelmadan waxa ninka la yiraahdo abwaan dahagaas marka waxaan ku leeyahay saaxiib kelmadda waxaad ka soo tuurtay meel ardag xus baan u dhignaa intii dhimatay oo deyntii naga dhimatay oo inaga maalin kasta wax xusna ee burcaduur hadeen tahay waa meeshan waa intana lagu jabsan laayay halka kale laakiin koonfurta lagu jabsaday waxa la umada reer Somaliland noolaada xisbiga wadani la yiraahdana anigu cabsanaan jidalmaana qurban ugu jin arag baan marka qaar xisbiga la yiraahdo wadani waa ku cadow wada jirka bulshada reer Somaliland waxaanu la siyaasad yahay oo la jiil iyo jaalba yahay kuwa ka soo horjeeda gobonnimada iyo wanaaga iyo dawladnimada iyo horumarka Somaliland haysa cadeeyo waxba yaanu iscadeyn saddexdaas sanaba is cadeyn laha xisbiga reer Somaliland hadaynu nahay codkeena iska khasaaranina waxba codaha isku siinina rayo xisbigiisa ciyaalkaaba uga carara waa iyaga cambaar dusha iska dhuftay waxaana ka dhigay xaafadiisi arrinta BK baan soo noqonaya barnaamijkan si faafiya dabcan anigu baqashiyo kuwan boo ila dagaalaman oo reer Somaliland sida madaxweynaha beenta looga sameeyo ee xukuumadda Somaliland beenta looga sameeyo ee meediahana loo soo fadhiistay anigana maanta la dagaalaman BK horta BK dabcan markii koobaad waxa jarka ka tuuray anigu dhowr jeer baan heli BK waa kii meesha la Kenya markuu aaday dabcan showgiisii uu rabay inuu qabto waxa qas ku sameeyay oo ka hortagay oo meeshii ka waalay waxay ahaayeen xukuumadda farmaajo iyo ciyaal u shaqeynaya BK waa intuu fahmi kari waayo marka la hadaan dabinka boodayn dalowbaad ka dhacaysa kuwaasa markaa qaska ku faruray laakiin reer Muqdisho waxba kuma farurin reer Muqdisho waxba kuma sameeyay reer Muqdisho waxa mooga laakiin ciyaal farmaajo dhaqaale soo siiyay oo adigu arrimo noocaas ayaa oo halka Kenya jooga وحتى ogaadeen ha noqdaan laakiin aan qadiyad ogaadeen iyo qadiyad aan laftoon aaminsanay laakiin uu ninkan ciil qabaha ay farmaajo ka dambeeyo iyo ciyaalka u shaqeeya oo isagana lagu yeerinayo caalamka Soomaaliland iyo xubriga weyn jiray oo isdin jiray ayaa qas ku furay maalintuu soo noqday yaa sharkan kale uga sii talaabsaday inaan keenay wariyaha la yiraahdo Petri Kosa
ayaa markuu hargeysa yimi wuxuu hor dhigay ila moriyaasha naxta qaar baa iska fayrasoo xayawaane oo ka hela un qof waraysiya wax noocaase betri cidu doonaba ha noqdo betri malaa nasaca masalakin anigu ma lihi halkaa reerahayo waxaa kuma haysto iyo waxaan ka hadlayaa taariikhdan suukin soo xidhaya betrigun baa hor dhigay muqdisho ka waran oo reer muqdisho dadka reer muqdisho waxay ku leeyihin dabadna isna kelmid aanu maskaxda soo marin ayuunbu isku yidhi oo ah ma muqdisho mise inta kale muqdisho ha iska maqnaato dhab shaydaankii agoontii kacaada yaan wax kalaba eegan dee ee ummadda isku daray ayaa kelmadii intay 500 oo wax kusii dareen oo social mediaha ku tuureen ayay hawiy oo dhan reexan weyn oo dhan dadkii degeliye mudhiflow dadkii aan waxba ogeyn oo dhan maya muqdisho dabadna ninkiiba waxaa laga dhigay khalkhal baa la geliyey waninkaa ka hadlaya kula war dadkan aada muqdisho u nisbaysaan had iyo jeer reer somaliland waa kuwii muqdishona dumiyey lakiin reer muqdisho da inta anagu waxaan leenahay war kaca oo dadkan guryihiina inta idinku yimaadaan idinku caaya weliba idinku dilaya kabaha idinku aasaya waa dadkaad hore isaga saartayna caydid idinku lahaa iyagoo tay xidhan bay dib idinku soo noqonaya tii maxaa ku xigay waa tii ingiriiska ay reer somaliland iyo bulshada Somali Week Festival ay usoo dhoofiyeen halkaana ciddi wanshay baan idin sheegay dabeetana waa kii maalin un malaa meel uu khudbadii wax ka jeedinaya malaa hees baa ka jeedinaya anigu wax isaga diblomaasiyadan iyo waxaan dhex geliyey garan maayo kun godobood baa waxaan lagu yeeshaayo nin jilicsan nin dee fanaana maba soo dhex galay oo annagaa waxaa ka hadalnay dabcan dabeedna maalkii maalintaana dad dhintay oo wax oo lahaa qaraxa haddii aad iska hadalku maalintaana uu ka taraaray aakhirkii haddaba cidda wanshay waxay ahayd reer turkey iyaga ayaa intay soo kaxeeyeen nin yar oo la yidhaahdo cabdixaafid iyo wax isku sheega oo dunida somaliland ugu neceb oo dunida reer somaliland iyo calanka markuu arko shuban ku dhaco oo hadda ka hor waraystay oo ay oo iska celiyeen ninka la Faysal Cali Waraabe iyo Professor Ahmed Ismail Samatar iyaga ayaa u keenay iyaga ayaa ku yidhi qadiyadaas way dadkan dad baa kala garan bala qadiyadii somaliland iyo somalilandnimada iyo xisbigii wadaniga haray iyo ninka lahda mahdi kuwaas ayaa halkaa dhigay cid kale yaanu eersan waxba imka saaxiib haystaalin waxba leefa soo galgalin waxba ummad baan raali gelinayaabo war reer somaliland baan wada raali gelin karin anigoo cabsanaan bartaa ka qeyliyaan dadka wada raali gelin karin oo mid kastaba commenkiisa ka jawaabi karin oo la soo wada hadli karin hadna iminka haddana mar labaad ha sii jabin oo iminka wixii ka dambeeyay saadkee baan kuleeyahay markaana kuwan jalay waa kuwa maantaba intay halkaa layfafka soo fadhiisteen isaana loogu wada qoslayo ee kule heblaaye qolama bal sadaqo qolo laga dhigay xaggee lagu arka qolamaa tahay magaraags baa qole ee dadkii dabna markii dambe hudheerhka u dhiibay waa kuwa adigana aakhira ku diray kuwaasuna wallahi meel xun bay ku dambeynayaan somaliland waxa ma yeel karaan mana dumin karaan magac xumaanay qaadanayaan meel kastaba ka qaadanayaan waayo waxaan qalbigoodan saafi ahayn oo xumaan waxay la doonayaan hooyooyinkood eedooyinkood walaaladood dalkoodii dadkoodii deegaankoodii war aad baan idin salaamayaa guuleysta haddaan qodobkan ka tegay muxuu ahaa talo dabcan umalayn ma inaan ka tegay anugu xisbiga wadani waxaan ummadda u sheegaya u bayaaminayaa inuu cadow ku yahay wadajirka bulshada reer somaliland in xisbiga wadani ay ka mid yihiin radio qolamaa tahay waa xisbiga wadani inay teera uu ka mid yahay xisbiga wadani inuu bakeyle xisbiga wadani uu ka mid yahay inay isku wada xidhan yihiin in xitaa qaar raba inay baarlamaanka inoo soo fadhiistaan oo hargeysa iyo burcayo jooga ay ka mid yihiin xisbiga wadani inay waxaan qaska ka wada qurbaha ay ka mid oo dee bahalkiiba uu ka mid yahay inkastoo maanta qofka dee maanta si fiican ba boo hadliyay ninka la ahdo Cismaan Cumar Dool waa xisbiga wadani isaga laftigiisu dhammaantu ninka la yidhaahdo mahdi guuleedka jooga muqdisho waa xisbiga wadani farmaajo isaguna u adeegay u shaqeeya marka xisbiga wadani isagaaba halkaa hore iskusii fashilnayba de wixii cadow somaliland kuana cidina u joojin mayso ama gudaha haadana ama dibadda ta baarlamaankan iyadana ka hadlayay ta baarlamaanka ee reer somaliland qolyaha kusoo celceliya saami qaybsigu waa danaystayaashii 15 sano meesha fadhiyey oo maalinta ay maqlaan doorashada ku meeraaleysta saami qaybsi maalinta kalena aan ka hadlin muqdishona halkaa qaraxa maanta ka dhacay iyo dhibaatooyinka waxaa geysanaya waxa weeyaan waa xukuumadda farmaajo oo waxay beegsanaysay niman mudulood ah oo ay rabeen inay meesha ku laayaan
واي إيجا الشباب لا شقيسته الشباب ده مو استغنية نارت sababtoo arrintan shabaab u saaxiibkiina wax weeyaan al-shabaabna waxa maalgelisa dowladda qatar farmaajona waxa maalgelisa dowladda qatar oo Fahad Yaasin baa u dhaxaa ma aamin halkan iyo inta ugu dambaysan arkay in yar halka xisbiga wadanina uu taageeraa Somaliland uu taageeraa farmaajona uu taageeraa iska noolo abti labadaba laakiin haysha labada geed jecel midna gaadh weeyde laba gabi dhaqadood buu waraabuhu ku gowracay hawdka karinta iyo ilaacyada bari isku mid shida midun ku hagaag mid caadil wadani ku qorto bartaas waan arkaya waan ku salaamay laakiin waan kula socdaa anigu lamdana waan arkaya waan ku salaamay gabadha kale halka hebel Ismaaciil ka waan salaamay ninka libaaxa gabilay adigana waan ku salaamay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa inta ugu sarreysaan ka arkay